أغرسي فينا عناوين اللقاء قد سمعنا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan mar labaad iyo mar kaleba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii taxanaha ahaa qaybtiisii labaad. barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad u xiiso badan. qisada oo ciwaankeedu yahay Eroolaha maanta caruurtii hore ka wacan. qisadan waxay ka dhacday dhulka Andalus. xilliga waxaa talinayay dawladda Andalus. sida aan ognahay muslimiinta marar badan ay soo xukumeen caalamka, waxaana soo maray dawlado aad u waaweyn. dawladihii soo maray waxaa kamid ah dawladii Andalus oo xukumaysay Isbaanishka iyo Portugal. dawladan waxa ay xukumaysay dhulka Andalus. wax u hanqal taagana maysan jirin markii laga reebo Kirishtanka waxa u dhisnay dawlad daciif ah oo tabar yar, waxayna uga dhisneed dhulka Faransa. balse waxay u hanqal taagayeen dawladan weyn ee Andalus. dawladda ka dhisneed Faransa waxa la oran jiray dawlatul qashaatila. waxa ay bilaabeen in ay tirsadaan jawaasiis dhaxgasha muslimiinta si ay uga keenaan xog buuxda. waxaa soo baxay jawaasiistii ayagoo damcay in ay soo galaan Andalus, laakiin nasiib wanaag qofkii ugu horeeyay oo ay la kulmeen waxa uu noqday wiil yar oo gacantiisa ku jirto 9 qowli xamaam, garabkana ay u suran tahay qaanso misna ooyaya. wiilkii waxaa la hadlay jawaasiistii oo weydiiyey sababta ku kaliftay in uu ooyo asagoo soo ugaarsaday 9 shimbirood. wiilkii yaraa ayaa ugu jawaabay jawaab qalbigooda argagax gelisay. wiilkii yaraa ayaa ku yiri jawaasiistii, ma arkaysaan 9kan shimbir? hooyaday iyo aabahay saaka markay xaafadda iga soo tirayeen waxa ay ii soo dhiibeen 10 leeb, waxayna igu dhaheen hanoo soo laaban adigoo wadan 10 shimbir. waxaa iga lumay 1 leeb, 9kii kalena waxaan ku dilay 9 shimbirood. xaafadiina uma laaban karo oo waxa iga maqan 1 shimbir. Allahu akbar. jawaasiistii ayaa la yaabay wiilka yar fikradiisa iyo dadka kan sida ay dagaalka diyaarka ugu yihiin, waana ay laabteen ayagoo baqaday oo cabsaday. markii ay u tageen xaakimkooda ayay ku dhaheen wax wada ah oo aad uga guuleysan karta ma jirto dawladdan Andalus, maxaa yeelay wiilkoodii yari waxa uu dili karaa 10 annaga naga mid ah. markaas ayuu ku yiri maya, dagaalka la jiro ee kala dagaalama maskaxda oo wata gabdhaheesa iyo kuwa ku faafiya xumaanta. sida aan ognahay oo la socona shariicada islaamka waa ay adkaysay xadka sinada, balse way ogaayeen in aan lagu oofi karin xad in la helo 4 marqaati mooye. sidaa daraadeed waxa ay ku faafiyeen si qarsoodiya. dhulkii Andalus waxaa ku batay faxshigii. muddo kadib waxaa la arkay dhalinyaro aan garanayn sida loo dabaasho, iska daa in ay leeb gamaane, ilaa laga arko wiil yar oo ooynaya. kadib waa la weydiiyey maxaad u ooynaysaa ayaa lagu dhahay, bal dhageyso waxa uu ku jawaabay jawaab dhalisay in lagu soo duulo dawladii Andalus. Kirishtankana dhiirigelisay oo ay ku dhiiradeen in ay furtaan dhulkii Andalus. wiilkii yaraa waxa uu ku jawaabay waxa iga lumay faraanti yar oo aan sabareys uga dhigi rabay jaceylkaygii, waxa uuna iga dhacay biyahan, mana aqaan dabaal. subxaanallah wal ciyaadu billah. halkii hore meesha uu kaga ooynayay hal leeb oo qasaariyay, wiilkan yar wuxuu ka ooynayaa faraanti yar oo uu sabareys uga dhigi rabay jaceylkiisii. Kirishtankii waxaa u fududaaday in ay ku soo duulaan dhulkii Andalus, waana ay ku soo duuleen waana ay furteen dhulkii Andalus. subxaanallah. waxaa kalifay dhalinyarada maskaxda looga soo duulay, maxaa yeelay way diyaarsanaayeen. maalintii ay ooynayeen leeb ayaga ka qasaaray, balse maanta waa lagu soo duulay dhulkii Andalusna waa la furtay ilaa la gubo masjidkii ama goobtii laga maqlo aadaan. wal ciyaadu billah. walaal qisadan haddii ku soo gaartay oo aad ka hesho subscribe-tan ugu caawi, furana gambaleelka. mahadsan.